banaanbaxan ayaa waxaa looga soo horjeeday dadka Itoobiyaanka ah ee ka ganacsada Puntland gaar ahaan kuwa loo yaqaan bedelka oo bulshada magaalada Garowe ay sheegeen inay wadaan arrimo ka baxsan ganacsiga Puntland ay u yimaadeen dadkan oo isugu soo baxay barxadda weyn ee magaalada Garowe ayaa ku qaylinayay erayo ka dhan ah Itoobiyaanka Puntland ka soo gala dhinaca Itoobiya maraan saaka booqday halka uu banaanbaxu ka dhacay ayaan la kulmay dhalinyaro kala duwan oo iyagu sheegay inaysan hadda wixii ka dambeeyo ay u dulqaadan doonin wixii dhaqanka suuban ee Soomaalida ka hor imaanaya Itoobiya oo cadowgeena koowaad ee bursay maanta dalkeena Soomaaliya iyada lid ku ah dadka Itoobiyaanka ee wadankeena ku soo qulqulaya ee la diiday inay ka baxaan Itoobiya inay u baxaan Yemen waa la diiday boosaaso waa ogtiin laba xaafadood iyaga degay Garowe waa ogtiin xaafadul Waabari iyo xaafadan Wadajir iyaga degay iyaga laga cararaya mar walba waxa loo soo diraya dadkaas inay qabsadaan dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena midda awgeed waxa ay badan dalbadal iyo diin badal iyo dhaqan badal intaba iyaga wada midda ugu darani waxay tahay inay diintaadi kala diririyaan matbac bay waxay u qaybinayaan ciyaalkaagi iyo dumarkii iyo xaafadii iyo dhalinyaradii intaba way u qaybinayaan inaguna uma dulqaadan karno ninkan meesha maanta kula nool wuxuu aaminsan waa dulinimo ninka kula nool inuu aaminsan yahay Itoobiya inuu dhulkan leeyahay inuu aaminsan yahay wuxuu ku leeyahay dhulkan ana ala hadaa u tagtid Itoobiya wuxuu ku leeyahay aniga dhulkan u dhashay aaway shacabkeeni miyayna u dulqaadanayna Falastiin sidee lagu qabsaday waxa sidii Falastiin lagu qabsaday ganacsi baa maanta inagana maxaa leeyna haystaa ganacsi baan lagu haystaa boosaaso hadii la qiyaaso asbuuci 300 oo qof in ka badan baa gasha marka ujeedka kaliya ay leedahay maxay tahay waa inay qabsadaan dadkan annaga waa ka hadleen wasiiradeeni waa ka hadleen culamadeeni waa ka hadleen yaa dhiman waa shacab guryaheena kama kireynayno barnaamijkan maanta aan soo baxnay mudaharaadkaana wuxuu ku salaysan yahay saad u jeedid shuurtooda ay ku muujinayaan dhalinyarada reer Garowe runtii bedel waa wax aad u xun waxana wataan waana sirdoon ba aaminsanahay annaga hadaan nahay dhalinyarada sababtoo waxay wataanin waxa weeye dhar bay bedelayaan waxay ku bedelanayaan weelkaasina tayo ma lahan laakiin sirdoon bay wadanka u joogan dan ayay leeyihiin dadka maalinka gaaraan ayaa ku fidinaya waxa wadantooda ay ku sugayaan annaga waa ka soo jeednaa waxaan ka codsanaynaa madaxweyne ku xigaanka iyo maxaa ku raadey baarlamaanka wasiirka amnigu waa ka hadlay arrinkaas waxa weeye shacabkooda la kaashadaan annagu diyaar baa u naadana shacabka reer Garowe inaan ka soo horjeesano inaan dalkayga difaacano inaan dhiigayga u hurno waxa weeye ma rabno ma doonayno waxa wataan waxaan tayo lahayn waxay ku bedelanayaan dhar hadarta maxaa ku raadey dharku bedel maxaa weeye waa dad bedel dhaqan bedel diin bedel dad bedel kulli waa wada bedelayaan haween baa sheegay inay faa'iido ku qabaan ayaga ka hor mudaharaadkan maaha in maxaan ku dhahay fawdo iyo maxaan ku dhahay loo soo baxay in dadka magaalada la fawdeeyo laakiin waxa loo soo baxay in diinta dadku diinta haystaan maxay tahay oo diinta Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam soo gaarsiiyay marka waxaan doonaynaa inaynu diinteena u hilino annaga waxaanu ku aragnaa dhaqan xumo magaca Ilaahay oo lagu cayaarayo maxaan ku dhahay dadka dhaqankiisa magaca lagu cayaarayo marka waxaan doonaynaa bedelka iyo waxa dhaqanka diinta Islaamka ka soo horjeedo inaanu ka soo horjeensano waayo Nabi Maxamed wuxuu yiraahdaa dhalinyaradu ay hiilisay dhalinyarada hadda joogta waxaanu doonaynaa inay diinta u hiliyaan oo magaalada maxaa ku dhahay magaalada Garowe dhalinyarada joogta intay kacaan inaynu waxa diinta Islaamka ka soo horjeedo inaanu ka soo horjeensano bedelka faa'iido laguma qabo maxaan ku dhahay shayada ay keenayaan waxa wixii qalina waa wax maaroobayo oo hadda kala dhamaanay uu dilaacaya wixii caagana saa goortii loo keena uu kala go'aya wax faa'iido ma leh haba yaraatee diinta inay bedelaan ma ahan wax kale uma isa imaan kabaha la soo xirto iyo caagadaha suuliyaasha ciyaalka tunjiyaasha loo dhigo bay magaca Ilaahay ku soo qoray marka waxaanu doonaynaa inaanu diinta Islaamka u helino anagu fawdo uma soo bixin dawladda iyo culimadana waxaanu ka codsanaynaa inay ayaguna diinta u gargaaraan oo diinta Nabi Maxamed soo gaarsiiyay in dadka u gaarsiiyaan diinta dadka hadda jooga waa u shaqeynaya diinta waa in loo shaqeeyaa mana doonayna wixii diinta bedelaya waxaan maan u dirayaa mowqifka ay ka qaatay ismada gobolka Bari oo ka hadlay afayeenka barnaamijka aad baan u soo dhaweynayaa waxaan dhiimanayaa anoo ka hadlaya shacabka mudaharaadayaasha isugu yimid caasimadda dowlad goboleedka Puntland marka koowaad waxaan ka hadlaynaa inay cadeyso dowladda Puntland mowqifka ay ka leedahay Itoobiyaanka dalka ku soo qulqulayo marka xiga waxaan ka hadlaynaa culimada Puntland iyagu mowqifkooda cadeeyaan oo khudbooyin ku soo qaataan oo musiibada shacabka ay ka hadlaan shacabiyad ka hadlaya xataa mowqif ahaan barnaamijka ka aaminsan in Itoobiyaanka dalka degaan oo dalka jooga mowqif siyaasi weeye inay siyaasadda ay leedahay ka cadeyso dalka wayna kala hadli kadhaa waxaan kaloo codsanaynaa bulshooyintu in mudaharaadkooda sii wadaan barnaamijka waa barnaamij ay shacabku muujinayaan hadda shacabku soo mudaharaaday oo shucuurtooda muujiyay
aad bay u mahadsan yihiin idaacadaha waxaan ka codsanaya codkaa baahiyaan dhammaan meel gaarsiiyaan mudaharaadkan la sii wado sanaa arrin kule toddobaad ka hor ayay ahayd markii magaalada Boosaaso ay ka hadleen culimo iyo nabadoono kuwaasi oo ka hadlay habdhaqanka dadka Itoobiyaanka ah ee ka imaanaya wadanka Itoobiya kuwaasi oo siyaabo kala duwan wadanka u soo gala waxaana bulshada ku dhaqan Puntland ay dawladda Puntland ugu baaqeen inay mowqif cad ka yeelato siyaasadda dadka Itoobiyaanka ah ee Puntland ku soo qulqulaya Cabdi Xakiin Xuseen Xasan Radio Daljir Garowe.